waxaan doonayaa in idin sheego waxaad ogtihiin maanta ummaddaa yari waxay haysatay inuu suuqa gobonimo yaallo ogtiin suuqii kale mataankiina ahaa ee ahayn uu gubtay nin habeenka marwo ama nin habeenkaa joogayna raad madaxiisa way ku samaynaysaa waanu ku cibaaro qaadanaya kuwa caqliga u saaxiibkaa weeye laakiin kuwaas qofkii habeenkii halkaa ila joogay waanana uma baahna dardaaranna uma baahna labada masaleen doonayaan idinkala hadlana nin ama daawaday ama habeenkaa joogay markan maruu sheego mar labaad loogu celin maayo mid waa midoo waahayn hadday cidi wax tarayso xoolo u goynayso idinkaa koowa dhaqankeenna sidaa ahaa ninku markuu caydhoobay isagoo miyiga jooga xoolaha yaa u goyn jiray dee inta tolka ag degan baa u goyn jirtay dee waahayn tolka koowaad uu lahaa haddaan indhaha la iska tuurayn oon meel kale loola cararayn sida kuwa alla iimaanka ka qaadee meel walba qabiilka iyo qolada ku sheega idinkaa u walaalahaayo idinkaa ku mataan waayo ku suuq waayey xidhiidh baa lahaydeen waxaa laga yaabaa qaarkiinna halkaas ku lahaayeen meherad halkanna ku leeyihiin haddii taa laga tagana taariikh inaa wadaagtaan oo gobonimo ay ka soo farcantay waaheen ila suuqeennii weynaaye qadiimkaabuu ahaaye markaa maanta ragga idinla midkee xoolo beelay inaad xoolo u goysaan oo xoolaha amaahisaan oo ka soo saar tidhaahdaan oo haddaad 5 dirsinaysa laba aad u dhiibto oo taa ka soo saaro aniga ii raasamaalku nii soo celi dee idinkaa lidinku leeyahy qaadaan hadday cidi ururinaysana kow baa uti inaa habsaantaanna mabay ahayn inaa ugu horeysaan ba ahayd inaa idinku guddiga ganacsatada iyo culimada annagana guddigeega heer qaran noo yeedhataan oo idinku ugu horwareejisaan ayaabay ahaydba waxba samaleho waxaa laga yaabaa waxaa la maqan tihiin in lala sugay baa weyn wax weyn baa dhexdiina ka wadaan baa laga yaaba oo waqti u baahday ayaa laga yaaba taasina waa taa markaa waxba idinku dardaari maayo inaa wax isartaan iyo dee waxaa la yidhi nin wuxuu ogyihi looguma celceliyo in wax lagaa filayo wax lagaa sugayo adna waad og tahay ilaahayna waa og yahay walaalkaagii waahayn ku caydhoobayna waa og yahay markaa dee aday hawli kuu taallaa siaad uga jawaabayso waa waxaad isugu timi waad ka tashanaysaa aniguna waxaan ahay mid wax weyn idinka filayo dadkii dee ummaddan ugu gobsanaa tii deeqina gobtuna deeq ma weydo way deeq fiicantay dee deeqdii gobonnimada waa laidinka sugaya taasina waa taa qodobka labaad een doonayaan idiin sheega waxa weeye dee ummaddan waxeedii yaraa hadday halkan yaallaan oo waahayn la waayey tanna miyaynu ku sugnaa inaynu weyno ila mushkiladdii waahayn taalle mushkilada midaa taalo idina waa ogtihiine miyaynu ku sugnaa weliba waxaan u malaynayaa inaad xoogaal tihiin ilaa maalintaan maayar noqday reer waahayn waan baryayey shir walba waan la gelay ku celceli maalintii ugu dambeysay waxaanu ku kala kacnay idina waa ogtihin allana waa ogyahay waxaan rajaynayaa inaan saa inaga noqon waxaan rajaynayaa in idinkuna maqashaan waad ogtihiin qarankanay ka go-antay suuqada in dib loo hagaajiyo waddo dambe oo xidhnaanaysaa inaanay xidhnaanayna waa ogtihiin waxaanse jecelahay cagaf dowladeed iyo cagaf dowlad hoosaad midna inaan idiin iman inaad taariikhda ku gashaan war nin walbaba intaad soo fidda waad garanaysaa dib u noqo badownimadana inaynu iska dayno irsuqu waddada ma yaalo imaka sekada qurux badan bay suuqa gobonnimo u samaysantahay inaysan ahaato dee ma ahayn suuqani waa suuq weynu dhaqaala yaalo suuqani waa inuu dee qurux badnaado suuqani waa inuu weynaado suuqani ma aha inuu waddada ku fido waa inuu cirka u fido dee ma aha inuu waddada ku fidee suuqu waa inuu cirka u fido dee adduunkana saasay dee ka tahay adduunka ma jirto meherad xagga hore u socotaa inagu horeynu u soconnaa waddada ilaa meel la maraba la waayo dee waxaan idinka filaynaa inaad tidhaahdaan war waanu tashanayna oo bacdal iidka arrin baa noogu imanaysaa qoladaa walaalada ayaan u ducaynaya maanta maalintii ugu dambeysay waxay gu dhahdeen talana ma hayno waananu tashan weyn saasaanu ahaanaynaa tala idinkii tala idinla taalla aad baan uga naxayoo cagaftaa dowladda hoose dhaqaalaha ummadda inay jeedjeedho maan doonin madaxdana dee waxa weeyaan madaxda ducadeeda iyo habaarkeeda midna lama yaraysto inaan duco weyn idin xambaariyaan rabaayo iiddu markay baxdo inaynu isula nimaadno waar annagaa furayna nin walba halkiisiibuu ku noqonayaa dabeetna aynu qorshe kala dejisano kolba waa ka sekadu u yaallaa gobonnimo kolba sekad baynu dumin karnaa dabaasaynu foog ka dhigi karnaa qofku xaqan horuu ku cararayo
wuxuu samaysan karaa 3 meelood dushiisa saaran oo mid store uu ka dhigto midna uu ka dhigto wax gaar ah midna uu ka dhigto wax gaar ah marka haddana cirka adduunyadu saas weey adduunyada ma jirto wax saa u socda oo balaadha adduunka korka cirka laga dusha laga faa'iideystaa imika fooqa yareen soo fuulay intuu leegiyo waa arkaysaa inta laga faa'iideeyna waa arkaysaa waxaan idin ka filayaa inaad tala keentaan tala xalinaysa wada inaan xidhaan tala xalinaysa inaan wadada ku fiqi inaan ku balaaran inaan ku fidine inaan arin kale aynu isla nimaano ilaa waa ogtihiin iidu markay baxdo wada xidhaan mayso wada ma xidhaanayso waayo wada waa duquniimo waa dawlad la'aan haddaynu sugno wixii waaheen ka dhaco dhimi suuqadeena ka dhacaan oo dibdimisku meel uu inaga gala waayo waa mir subxaan allah waynu ku sugnay weeyde marka digniin baynu qabnaa waxaan doonayaa war xoolihii ummadda xoolaha ninku markuu ilaahay irsaq siiyo u badato xoolaha waa lala leeyday waxaana haysaan imika idinku keligin ma leydinde waa leydinla leeyday waayo bal waxaad eegtaa keligaabaad bilowday ilaahay baa kuu barakeeyey waashmaan baa kuu shaqeeya dilaal baa wax kaa iibiya mid baa kuu masaxda mid baa kuu sii shaqeeya mid baa kula raseeya mid baa kuu tiriya mid baa kuu xisaabiya meheradaadii yarayd ee adigu aad keligaa samaysatay waxaa ku nool 20 qof baa ku nool dee qarankoo dhan baa kulalo ummaddaa kulala dee miyaynu sugnaa intay ummadda waxeedu baabaayaan xoolahan aad haysaan xoolihii qofku lahaa maahee waa xoolihii ummaddu lahaayeen wey ummaddan dhaqaalaheedii weeye waxaa imika dadaal loogu jiro waaheen xogaaru sii daaya degdegey kuwa 5 kun ka yar wax siiya waa dhaqaaliha soo noqdaa looga jeedaa dhaqaalaha ummaddan baa qayb ka tihiin dabku dhibaatada uu ina gaarsiin kara mar labaad hadduu dhaco ilaahay naguma keene marka waxaan rabnaa inaynu talo rogrogno talo isugu nimaadno waxaynu islooga idinkoona hor socda ninka idin diidana anagu dawlad anagu ninka amar diidka sameeyo aan ku filaano idinku laakiin intiina wanaagsan ee iimaan kale inay suuq gobonimo sii horumaro qurux batuu koro doonaya qofkii raba kaana waanu ducaynaa ka kalena waan qabanayna suuquna imaka haddaynu qurxino oo bilcino oo wadooyinka ka saarno dhalinyarada dhan way imanaysa adeeg isaga u soo dooranaysa because qofka dhalinyaradu wuxuu doonayaa suuq wanaagsan oo wadooyin leh oo leer fiican leh oo wada quraarada oo meel markuu meel yara eega green yara ah ayuu dee qofku imanaya laakiin meel isku rarana oo meherad say usoo fidaysay laba qof meelay maraan ay ka hadhay cidina idiin mamsadad waa kuleel daada adduunkan imika waxa la doonayaa inuu waad aragtaan adduunka suuqidiisu sida yihiin waynu ka dhigi karnaa gobonimo marmarkaasoo midhan wada dhigi karnaa meesha ugu nadiifsan baan ka dhigi karnaa meel hargeyso dhan isugu timaadaan ka dhigan karnaa haddaad dee doonaysaan lacagta inaynu khasnadaha ku gurnana aynu riyadeenu intaa tahay dee wixii shalay aynu aragnay inuu joogaynaa ama waxaynu samaynaynaa waxaa ka fiican oo aynaynu qorshe dejisano riyo samaysano gobonimo 10 sano gudaheed waa inay saa u ekaataa halkaa gidaarkeeda ku soo waran oo inta matala naqaano maalinba qaybtaynu duminayno ee la isugu tegayo ee la dhisayo haddana qaybta kale 10 sano maalintan 10 sano dhammayna haddana 10 sano ka bacdi haddana saa waa inay u ekaataa dee ilaa adduunku marka dambe dhaa maasha allah meeshan quruxdeeda maxay marka dee waxaynu rabnaa walaalayaalow maanta idinku maalkiiba haysataan walaaladiin laakiin maanta maalkii ma hayaan waxaa laga yaabaa maalintii maalka hayeen taladu inay ku adkaatay laakiin idinku maanta waa haysaan u taliya maalka ha loo taliyo hungurigana hala maamulo